السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي دمان أصحابي ملك سو joogtaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada Somali Technology iyo new tutorial ama casharo cusub موضوع maanta wuxuu ku saabsan yahay Facebook qofka soo garanaya qofka soo isticmaala qof kasta oo markaas teknolojiyada isticmaala ama social media isticmaala waxa uu marka horeba ka soo bilaabay social media waa Facebook hadaba Facebook muxuu yahay Facebook waa website ama web application dabeeto qof markaas uu ka furanayo account profile si uu la xiriiro ama ugu darsado friends u yeesho asxaab dabeeto uu la xiriiro family-kiisa iyo friends-kiisa iyo dhammaan qof kasta oo markaas isaga ku soo darsada soo codsada friends la noqda ayuu la xiriiri karaa hadaba Facebook qofka profile kule ama account kule waxa uu sahlaanaya inuu soo post gareeyo qoraalo fikradihiisa ah iyo sawiro fiidiyo iyo dhammaan wax kasto markaas uu asagu is leeyahay waxay dan u tahay ama waxa ka faa'iideysan kara asxaabtiisa friends-kiisa sidoo kale Facebook qofka profile kule wuxuu awood u leeyahay inuu la sheekaysto ama wacaba video iyo audio labadaba asxaabtiisa iyo family-kiisa iyo dhammaan qof kasta markaas asagu uu danaynayo oo uu rabo inuu la xiriiro ama communication uu la sameeyo hadaba intaas waxa loo yaqaanaa Facebook basic okay su'aasha labaad waxa weeyaan Facebook maxaa loo isticmaalaa ama Facebook maxaad u isticmaashaa hadaba jawaabta qof kasta uu bixinayo way ka duwan tahay qofka kale dadka qaar ay wax ku leeyihiin Facebook waxay isticmaalaan for fun Facebook waxay u isticmaalaan for fun inay kaliya madadaalo iyo inay waqti isku dhaafiyaan ayay u isticmaalaan dadka qaar waxay ku leeyihiin Facebook waxay u isticmaalaan maxaa yeelay qof kasta Facebook uu isticmaalaa okay everyone use Facebook si adraada ayaguna Facebook ay way isticmaalaan dadka qaar Facebook waxay u isticmaalaan si fikradahooda aragtiyahooda iyo dhammaan waxay aaminsan yihiin ay uga dhaadhicin lahaayeen ama ula wadaagi lahaayeen asxaabta iyo dadka markaas ay ku xiran dadka qaar Facebook waxay u isticmaalaan sidii inay dadka qaar Facebook waxay u isticmaalaan inay information wararka warbixinada iyo dhammaan wax kasta marka ayagu daneynayaan ay soo post gareeyaan si halkaas ay dadku uga daalacdaan ama ay uga helaan information dadka qaar Facebook waxay u isticmaalaan kaliya inay family-kooda iyo friends-kooda ay kula xiriiraan oo ay ka wacaan dadka qaar Facebook waxay u isticmaalaan inay wax ka bartaan oo ay aqoon ka kororsadaan dadka Facebook qaar waxay u isticmaalaan ujeed ayaga khaas u ah ama personal interest waxa loo yaqaano ay Facebook u isticmaalaan qof kasta ujeedka Facebook uu isticmaalo waa waxa asaga u gooni ah ama asaga u gaar ah okay su'aasha saddexaad ma ka faa'iideysata adeegyada Facebook uu bixiyo hadaba Facebook muxuu bixiyaa Facebook wuxuu bixiyaa adeegyo ka badan basic service-ka ama adeegga basic-ka oo dadka inta badan isticmaalaan adeegyo inta ka badan ayuu bixiyaa oo dheeri ku ah adeegyada Facebook uu bixiyo waxa kamid ah groups pages Facebook live Facebook watch and Facebook jobs games event recommendation and response crisis fundraising iyo iyo wixii intaas ka badan hadaba adeegyadaas Facebook uu bixiyo dhamaantood waan arki doonaa mid ayaana u sharaxi doonaa waa haduu waqtigu noo saamaxo ilaahayna nagu simee su'aasha afraad waxa weeyaan Facebook in the future Facebook maanta aan isticmaalno waan aragnay qaabka uu samaysan yahay iyo qaabka uu shaqeeyo iyo adeegyadiisa hadaba Facebook berri ama Facebook mustaqbalka dhow sida ayuu noqon doonaa maxaa lagu soo kordhin doonaa Facebookaas hadaba haddaan sii qiyaaso ama aan prediction ku sameeyo Facebook mustaqbalka wuxuu noqon doonaa Facebook mustaqbalka waxa lagu soo kordhin doonaa adeegyo aan hadda laga helayn Facebook aan hadda isticmaalno hadaba adeegyadaas soo qaadanaya saddex adeeg waana adeegyada qiyaas ahaanteeda aan is leeyahay waa laga heli doonaa Facebook berri ama Facebook mustaqbalka dhow aan arki doono adeegyadaas waxa kamid ah digital market waxa weeyaan waa suuq ama waa meel u saalaysa qof kasta oo business iska leh ama qof kasta oo iibinaya badeecad inuu ku xayeysiisto digitalkaas badeecadaas oo markaas dadka u baahan ay halka ka iibsan karaan ama halkaas ay ka dalban karaan digital market weeyaan sidoo kale digital currency ama digital money Facebook wuxuu fursad u siinayaa qof kasta oo Facebook isticmaala inuu ka furto account ku kaydsado lacag loogu soo diro lacag asna uu lacag ku diri karo qof kale oo Facebook isticmaala adeeg saddexaad waxa weeyaan online education Facebook wuxuu fursad u siinayaa qof kasta oo markaas aqoon haya ama wax isku haya inuu furto page dabeeto uu iska duubo fiidiyo uu ku sharaxayo waxa uu yaqaano dabeeto uu soo geliyo hadduu free ka dhigayo waa free
hadduu lacag sameynaya lacag ka sameynaya. Marka Facebook wuxuu u sahlayaa dadka Facebook isticmaala inay markaas ay Facebook wax ka bartaan ama Facebook ay ka helaan aqoon macluumaad iyo markaas wax kasta oo ay markaas ay u baahan yihiin inay ku takhasusaan ama inay bartaan iyo dhammaan adeegyo kale oo fara badan oo aan la qiyaasi karin maadaama teknolojiyadu ay improvement ay samayso Soomaaliya maalinta ka dambaysa iyadoo markaas ku dayaysa inay xaliso baahida bini'aadamka soo kordha ama markaas wax kasta bini'aadamka markaas